gabadhii libaaxii baa feerayde libaaxii kii uu joogay cadawaran beerta cadawaran ee libaaxii baa gabadhii feeray gabadhii lacagtii gaata ii soo eli aniga lacagtayda idinka gabadhii gaata ibraahim maxamuud xasan oo ka mid ah dhalinyarta ku nool caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa ibraahim ilaahay waxa uu hibo u siiyey inuu sameeyo codad kala duwan sida dumarka hablaha iyo waliba sidoo kale inuu sameyn karo codka oromada kale uu ku hadli karo si ay luqadda uga hadlaan Soomaaliga dadka oromada ka soo jeeda waddanka Itoobiya ibraahim oo kugu soo dhaweynay MTV ku soo dhaw walaal qaali waan dhowahay markasta meel kastaba agtiina ibraahimow codadka samaysid maxyaabaha ka mid ah noo sheeg waxaa ka mid ah dumarkii oo laba qaybood ah sidii inan dee gashaantiyo kale iyo hooyadii dumarka ahayd ee weynayd maxay ahayd toolay codkeen luqadan lagu hadlo maaragtay Soomaaligeena dadka waxay dhahaan Oromo laakiin Oromo maaha Oromadu waa luqad gaar ah laakiin waa Soomaaligeena la calaaliyay sidii aad ogeyd ba sheekadii ka taagneed libaax cadawaran waliba sheekada taagan oo baraha bulshada haysta cadawaran bal hiyar ka mid ah naga maqashay waxay u dhacaysay sidatan wuxuu ahaa nin telefoon ku hadlay oo kale oo gabadhii la dhahaa Oromaheeda libaax ma garanaysa sheekadu ninkeedii bas ka soo qaaday hello may magli gabadhii libaaxii baa feerayde libaaxii kii uu joogay cadawaran beerta cadawaran ee libaaxii baa gabadhii feeray gabadhii lacagtii gaata ii soo eli aniga lacagtayda idinka gabadhii gaata wallaahi uu ka magigay ii soo eli aniga lacagtaydii Allahu akbar ilaahay ma baganayaan anigi bay leeyihiin gabadh libaax fuulay adna fuule ilaahay ma baganayaan saasay u dhacaysay walaw ay dadku moodayeen ba dumar dadka intooda badan ay gabadh dumar qof dumar moodayeen laakiin codkaasina saas u dhacay waxa jira codad kale oo samaysid horta aan daanan ka tagin codkan laftirkiisa oromada sameynaysid goormaad isleedahay waad ogaatay inaad sameyn kartid sida wallaahi waxaan isku arkay 2014 baan oran karaa xilligaas ku arkay waxay ahayd waqti rabadaanteedii oo kale ahayd 14kii waxaa jirtay meel dhalinyarada isugu yimaadaan oo xaafadaha ka mid ahayd marka waxaan ahaa eeriga shacabka inta kale halkan godkan iyo iska galaan xira awr godka la yiraahdo marka macdarka god agtiisa la isugu yimaad jiray habeen baxaa dhacday xaajiyad roon dawada inay meesha soo marto waxayna wada qabatay aniga iyo nin Oromo marka aniga Oromka gaariyaasha macdarka ayuu meelaa markii la geeyay saldhiga ayaa waxa dhacay inuu ninkii taabadee way walaalow ilaahay maad baganeen askari aniga gaari baan meerayay maxaan sameeyay markaas isku day ninkaas markii la yiri sii daayay ninkii si lagu sii daayay uu ajaanib noqday ayay ninka aad ka liidatay adna raggiisa raacday markii inay naxdinahayd in wallahi ma garan karo markii baan keenay way dana baarsan saga soo gaari ma meeday ana baarsan saga dhigay way walaalow ilaahay ma baganaysa askari aniga gaariba kabiban baaraysiinayay shaqadii markaan dhameystay gurigii shuhur baan doontay shuhurtii baa igu gabatay askari raacban lagu sii daayay kana waxa dhacay dhalinyaro marka ka tirsan ciidanka saldhiga joogtay markaasaan dees wada garanayno ayaa ay yeeray magacaygu yeeray telefi garanay Ibrahim soo dhiga mariyay yaa la yiraahdaa qabta waa ka hadlay caad u hadlay Ibrahim waxa sheegtay inaad sameyn kartid sidoo kale codadka dumarka iyo hablaha kale iyaga laftirkooda bal wax naga maqashay horta haday walaw dumar isleeyihiin haddana marka la sii kala qaado islaantii oo kale hooyo miyaad waraysanaysaa allah war hooyo waxaad ii sheegtaa yarkii ka weynaa horta magaciisa muxuu ahaa jaamac oo kale isku dhaw allah waan garanayaa sureer weynankeedii waa labada carruur kii yaraa waa codka islaanta inaan tira nayaahinta nada walaal madraacigii keenta habeen dhow talnaa roos bakka talka kala dilacsan mala qaama la raacinaya allah naya hadakii baa ila soo hadlay war soo sheekeen waqti naya intuu ila soo hadlay baan tasaawayaga telefoonka baa ilaahay diita waa ku jira kama qabantay maxay ku wata kama qanayeen mala shaxdoodii imka codka dumarka aad matalaysaa codka dumarka maxaa isleedahay way kugu kalifeen inaad samaysid Allah ha naxariisto isaga intii islaamka ahayd dhimatayba inagana nooga daba naxariistay waxaan aad u daawin jiray waqtiga yaraa maxamed cumar xuseen aad u garanaysid huryo ama dadweyne wada garanay huryo majaajilaysta weyn buu ahaa majaajilaysta Soomaaliyeed buu ahaa ciyaalnimadeedaba aad u taageeri jiray isaga aad u daawin jiray dabeetana waxaan isku dayay inaan keeni karo codkiisa aakhiratan waan keenay waxaan xasuustaa riwaayad ay oran jirtay beenay warn
oo isaga iyo basbaas basbaas baa ku odhanaya warqad baa looga soo diraya dibadda deetana basbaas markaa af carabigii baanu garanayay inoo akhri buu ku odhanaya markaasanaysaa aan warqadda akhriye hooy war warqadan akhriyay ammaan iyo ammaan oo aan warqadda inoo akhriye markaasuu ku odhanaya ammaan bay ku xidhantay waxaagu waxaa kaloo ka xasuustaa mar ay leedahay odhanayso warqaddaydii siir oo odhanaya warqaddaadii haa ku furayba hadhow markay warqadda kala qaataan bay ku odhanaysaa warya inanka weyne carruurta weyne xamsa wuu hurda xun yahe sariirtaa kaga tegin wuu ka soo dhacayaa na orod iska tagso kuma naafuri maxaa naga kaa galay markaasay odhanaysaa waryahe ka ku xiga isagu caana boodhaha wuu ka xanuustaa caloosha ku xanuuntee ha siinin orod naga tagso maa naafurin waar waxaad samaysaa gabadh kale guriga uguma iman karo hooy oo carruurta dusha aqalkaa kaga qufunine la jooga ha ka tegino gabadh kalena naasoo kuma naafurin awal waa runtaa waynu isfurnay daawadayaalkaasi waxa uu ahaa ibraahim maxamuud xasan oo ka mid ah dhallinyarta ilaahay hibada u siiyey inay sameeyaan codadka kala duwan sida codka la calaalinaya oromadoo kale iyo sidoo kale codadka dumarka